السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada daawadayaal, waxaynu gaadhnay 673. waan rajeynayaa intaa iyo inka badanba inaynu gaari doono. waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala ee isku keenay halka ka bacdiina waxaan u mahadcelinayaa qof kasta oo ka mid ah 673. waxaan leenahay kusoo dhawow meel idinka jecel yahay insha Allahna waxaad ku qanacdaan rabbina raali geliya ayaad ka heli doontaan. waxaan rajeynayaa inaad sii sheer garaysaan asxaabtiina iyo faamiligiina. maanta waxaynu joognaa wadanka Sacuudi Arabiya, magaalada Ribaaq. waxay u jirtaa magaalada Jeddah 160 ilaa 180 kiiloomitir. sanadu waa 1993. halka waxa ku noolaa oday ahlu khayra oo la oran jiray Abu Mansuur. markii hore waxa uu lahaa meel kaalin shidaal oo weyn. kaalintiisan shidaal horteeda xitaa wuxuu dhigi jiray odaygani timirta, biyaha, cunada si dadka musaafirka ah iyo dadka baahani ay u qaataan. xitaa kaalintiisa shidaalka haddii uu arko qof baahan oo aan lacag haysan, gaadhigiisa uu ugu shubi jiray. wuxuuna odhan jiray orod. adigu waxaynu odhan karaa oday ahlu khayr ayuu ahaa. intaa waxaa ka daran dadka uu shaqaalaysiiyey. qofku arko inuu magaalada ku cusub yahay, aanu magaalada u dhalanay, waxba haysan, waa shaqaalaysiin jiray. waxaa dhacday in odaygani kabacdi markuu ayaamo iska joogay uu iibsaday beertii. maasha Allah, ilaahay baa u barakeeyey. beertii waxaa kasoo baxay dakhli aad u badan. dakhligaa kala bar waxaa le masaakiinta waa loo gurayaa, masaakiinta waa la siinayaa. qofkii baahan, kii wadada maraya, musaafirkii. waxaan kuri qof walba oo yaqaanaa waqtiga Abu Mansuur inuu ahlu khayr ahaa, odayaad wanaagsan ahaa ayuu qoraayay. waxaa dhacday in uu dad badan u shaqaalaysiinayay. ayaa dadka uu beertiisa ka shaqaalaysiiyey waxaa jirtay 3 nin oo Bakistaaniyiin ah. Abu Mansuur beertiisa aad buu u jeclaa, weliba aad wuxuu ilaalin jiray matoor biyaha beerta u soo saari jiray. waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah, weliba markii dakhliga soo gabagaboobay oo uu xisaabinayo, ayuu lacag aad u badan buu tirinayay. maadaama sanadka lacag aad u badan uga soo baxday beerta. mid ka mid ah dadkii u shaqayn jiray beerta oo weliba nin Bakistaaniya ah ayaa wuxuu arkay lacagtan badan oo tirinayo. ninkii damac baa galay. wuxuu yidhi waxaan doonayaa lacagan alaab siiyo, oo lacagtii buu siiyey. kabacdi nimankii buu uga sheekeeyey 2 nin asxaabay yihiin oo beerta iyaguna ka shaqeeya. misna markuu dhexda waday buu yidhi naga daayo, iska daayo. 2 nin baa war anagba damac bari horuna galay, tolxugu lacagta dhigtaa. mid baa wuxuu yidhi de markuu horta salaada cisho ka soo baxo gurigiisuu aadaa, mise aroortii bangigu dhigtaa. garan mayna wuxuu dhaheen lacagta waa in siday tahay baynu soo qaadanaa. mid ka midana waa inuu Abu Mansuur bari ugu yeedhaa beerta. halkaana waynu ku dilaynaa, lacagtana waynu ka qaadanaynaa. laga yaabaa gaadhigiisa lacagta ugu jirtaa. waxaa dhacday in mid ka mid yidhaahdo Abu Mansuur soo dhawow, matoorkii bir baa ka jabtay. biro yar sahlan haday yihiin daanaba waa ku xidhi lahayn, laakiin bir baa ka jabtay. waxaan doonayaa inaad soo eegtid oo soo bedeshid. Abu Mansuur waa naxayo, matoorkiis aad buu u jeclaa. wuxuu aaday dhinacii beerta, kiibuu soo kaxeeyey. beertii albaabada u furan yihiin buu yimi. wuxuu yidhi maxaa beerta albaabada u furan? waxba oo annaga furnayna keeno. beertii baa la gashay. cabaar buu jeediyey. inta labadii kale way imanayeen. labadii baa yimi. waxaan ku yidhi mindi baa la geliyey. xoogaa lacag jeeb ku sito waa laga qaatay. lacag gaadhigiisa ku jirta waa laga qaatay. waxa la hadaba meedka sidee baynu u dilaa. waxaa dhacday inay meydka meel baa jirtay lagu ururiyo timirta qalashay iyo geedaha qalalay. meeshii bay waxay uga qodeen god, waana ku rideen, waana tageen. cabaarka bacdi waxa tabay caruurtiisii iyo reerkiisii. waxaana la galay baadhitaan. mid qaar caruurtiisa ka mid waxay aadeen beerta, halka qaar kalena ay aadeen magaalada. kuwii magaalada aaday mid ka mid ah ayaa waxa loo soo sheegay in markii ugu dambeysay uu raacay ninka beertiisa ka shaqeeya. wuxuuna isiraabaha beertiina buu jiraa,
walaalihii buu ugu yimi. walaalihii waxay dhahdeen aabe gaadhigiisa waa yaalaa, gaadhigii furihii baa ku jira, caadana uma lahayno halka kaga tago. dee markaa aabe maxaa helay, waxa la galay baaritaan aad u dheer baa la galay. waxaa yacni magaaladii oo dhan baa iskugu timi. haddaba waxay arkeen dhiig, cabaarsi u baadhayeen, wiilashii qaylay kaga taageen. dhiiggii bay misna raadad bay arkeen iyo dhiiggii meeluu galay. waxay arkeen meeshan geedaha qalalay lagu kaydiyo uu dhiiggii yaallo. kabacdii waxaa dhacday inay dee doonita meesha qodaan ilaa ay ugu dambeyn meydkiisa heleen. haddaba 3 nin jaan iyo cirib meelay dhigeen waa la waayey. waxaa dhacday inay dhowr bilood kasoo wareegto, booliiskii baaritaan galeen. haddaba mid ka mida booliiska, oday aad u jecla odaygan Abu Mansuur oo dhowr jeer odaygana caawiyey, ayaa kaladi waayey. yacni habeen walbana wuxuu ugu yimaadaa baryahan dambe Abu Mansuur oo leh waxaad ii aadaa kabcada ii aad oo iisoo yacni cimri ama iisoo xaji oo kale. wuxuu yidhi ninkii waa jiifi kari waayey, waxaan aaday kabcada. wuxuu yidhi markii aan yacni 6 jeer wareego, hal mar wareeg ii harsanaa ayaa indhahayga waxay ku dhaceen amarada ilaahay. nin ka mid ah nimankii Bakistaaniyiinta ahaa, ninkana 6 bilood ka hor baan anigu arkay. wuxuu yidhi ninkii markaan arkay, xeerka kabcada waxa weeye xitaa haddii aad qof la dilay, qof wax dilay, maxay tahay aad aragtaan, yacni laguma dhex qabanayo meesha, laguma dhex dilayo. waa in aad dee u sheegtaa booliiska meesha jooga iyo askarta. odaygiibaa wuxuu tegay booliiskii, ninkii intuu cabaar indhaha ku hayay meeshuu galayay. waxa dhacday in maxay tahay ay booliiskiina meesha yimaadaan, ay yidhaahdaan ninkan saad ku garatay inuu isaga dilo. wuxuu 6 bilood ka hor baan arkay. waxay dhaheen 6 bilood ka hor qof laguma soo qabto, laakiin haddii ay dhacdaba aan soo qabanno, ninkaa wixii ku dhaca adiga ayaa kor ku qaadanaya, qofna la iskama soo qabto. waayahay buu yidhi soo qabta. ninkii baa la soo qabtay. odaygii baa yimi, maxay tahay taliyana ka ahaa Raabiq. wuxuu yidhi adigoo soo hebel ma tihid, hebel ma dishay. adigu ninka Bakistaaniga uu iska argagaxay. ugu dambayna wuxuu sheegay dilku soo u dhacay. labadii asxaabtii ahaa, mid waxaa laga helay beer ku dhow magaalada Riyaad, midna waxaa laga helay tuulo kale oo Sacuudiga ka tirsan. sidaa ayaana lagu qabtay. waa rajeynaya inaad ka hesheen. channelka subscribe saara, gambaleelka fura, fiidiyoyadana like saara. waad mahadsantihiin.